بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي سبحانه وتعالى محله waxaan doonayaa inaan la wadaago dhowr qodob oo qofku iskaga daweyn karo loo yaqaano caajisnimada caajisnimadu qofku waqtiga uu joogo waxay ku keentaa waqtigiisa inuu lumiyo shaqada uu qabanayo inuu qaban karo waayo hawsha uu hayana qofku inuu isku dayo inuu sii wado inta badan waxaan aragnaa qofku xilliyada uu caajiso waa xilliyada aroortii markuu soo tooso duhurkii oo kale habeenkii oo kale qofku waa xilliyada ugu badan ama hurdo ka soo kacay ama shaqo uu ka yimiday ama waxyaabo kale uu dareemay marka si aad isku daydo inaad waxyaabaha uga hortagto shantan qodob insha Allah taala samee qodobka koowaad aroortii marka soo toosto waxaad qorsheysataa maalintii waxaad qaban lahayd hadii aad qorshe leedahay qorshe ku socoto maalinta waxaad qaban lahayd 1 2 3 ku qoran yihiin caajisnimadu kuwa soo dhacaso ama ma dareemisid qodobka labaad waxaad isku daydaa maalinta sida tahay marka inaad waxyaabihii aad qabanaysay aad maskaxda geliso oo habeenkii kala soonaad ku seexatid aroortii kala soo toostid duurkii kala marka timaado aad maskaxda ku haysid way taas waxay keenaysaa in aanad hore u dareemin caajisnimo qodobka ku xiga waxaad isku daydaa in aad nafsad ahaan istajisid su'aal ahaan oo kale inaad iska ilaalisid waxyaabaha buuqa kugu furaya waxyaabaha kugu keenaya in xaaladaha noloda ay ka khalkhalaan waxyaabaha kugu keenaya halkan aad joogto inaad ka dhaqaaqin qodobka ku xiga waxaad isku daydaa inaad jir ahaan aad istajisid su'aal ahaan oo kale cuntada aad cunayso hurdada waxyaabaha naftu ay u baahan tahay inaad ka dhargisid oo habeenkii kale si fiican aad u seexatid aroortii kale si fiican aad u quraacatid qadadiga aad cunatid marka hadduu qofku tamar u leeyahay tamar u iskiliyo caajisnimada inta badan kuma soo degdegayso ama hore qofkii uguma imanayso qodobka ku xiga waxa weeyaan waxaad isku daydaa waxyaabaha jeceshahay inta badan aad xiisayso inaad iyagana mataqaanay aad isxasuusiso oo waxyaabaha jira qofku uu xiisayo nooc doona baa hadaanay kuwa aad isxasuusiso waqtiyadaas leedahay caajis baad dareemaysaa kuwa aad qabatid oo ku iyo laba aad tirahdid inta ugu badan caajisnimadu wax la yiraahdaa qofka iyo waa sida uu la qabsado iyo qofku isku dayo xal ugu helo haddii la sii qabatimo oo kolba maalinta ka dambaysa sheegaya la sii joogo qof wada noqonaya shay caada hadduu noqdana qofku la shiisko noqonaya marka inta uu sidii isku dayo inaad ka hortagto inta kugu cusub yahay ku dayo inaad seerka nololeed aad geliso inaad ka hortagi lahayd dhammaantood baasantiin waxaan jeclaan lahaa asxaabta inaad la wadaagtid laakiin iyo sheegna iskiisid saan ugu qalan noocana soo badina